dhibaatada ka dhalatay xirnaanshaha marinka Hormuz ayaa sii kordhaysa iyadoona gaartay dunida dacaladeeda. kumanaan markab ayaa hadda ku xayiran marinka muhiim ku ah isu socodka dunida, iyadoo sidoo kale shaqaalaha kumanaan kuna oo maraakiibtaasi saaraa ay go'doon yihiin, isla markaana ay qarka u saaran yihiin inay u dhintaan sahay la'aan. haddaba waxaan warbixintan ku eegaynaa maraakiibta ku xayiran marinka muhiimka ah iyo shaqaalaha hadda u baahan in la badbaadiyo, taasoo Iiraan ku xayirtay isla markaana go'doon gelisay kadib markay soo wajahday cabsi ay ka qabaan miinooyinka iyo sidoo kale duunyaha waxweerara ee Iiraan. dhibaatada hadda ka jirta marinka Hormuz taasoo saacadihii ugu dambeeyay ahayd mid aad ay dunidu u hadal hayso. wargeyska Wall Street Journal ayaa shaaca ka qaaday warbixin oo soo saaray in qiyaastii 2,000 oo maraakiib ah ay hadda ku xayiran yihiin gacanka Hormuz sababo la xiriira xanibaadaha Iiraan ee xorriyadda isu socodka marinkan muhiim ku ah dunida, halka in ka badan 20,000 oo badmaaxyaal ah ay hadda wajahayaan khataro sii kordhaya oo ay ku jirto yaraanta sahayda ay qaada lahaayeen maadaama ay hadda halkaasi ku xayiran yihiin, isla markaana wax u soo gelaya iyo wax ka baxaya aysan jirin. sida laga soo xigtay ururka caalamiga ee badaha ee IMO, kumanaan badmaaxyaal ah ayaa ku nool hadda xaalad khatar ah oo badda gunteeda ah, iyagoo aan awoodin xitaa inay socdaan ama ay soo laabtaan maadaama dhibaatada ay sii korortay in ka badan 1 bil oo marinkaasi uu wajahayo khataro sii kordhaya. xogtu waxay tilmaamaysaa in ka yar 200 oo maraakiib ah ay ku guuleysteen inay maraan marinbiyoodkan toddobaadyadii lasoo dhaafay, halka inta badan ay weli ku xayiran yihiin iyadoo aan la cadeynin goorta gaadiidka badda uu caadi kusoo noqon doono. xiisadda ayaa kasii daraysa iyadoo sahayda asaasiga ah ay bilaabanayso inay ka dhammaadaan shaqaalaha halkaasi ku sugan, waxaana shaqaalaha saaran maraakiib badan ay hadda la ildaran yihiin sahayda cunnada iyo weliba yaraashaha biyaha, taasoo kusoo beegantay iyadoo ay sii kordhayaan cabsida laga qabo in aggaasi la duqeeyo, taasoo xaaladda ka dhigaysa mid khatar badan maalinba maalinta ka dambeysa, iyadoo aan la helin xalad degdeg ah iyo jawaabo sugan oo ku saabsan buuxitaanada maraakiibta. shaqaalaha maraakiibta saaran ayaa adeegsanaya habab kale oo isgaarsiineed oo ay kula xiriiraan dadka, kuwaasoo ku jiraan raadiyaasha mawjadaha soo noqnoqda ah iyo weliba baraha bulshada si ay isu dhaafsadaan talooyin ku saabsan sida loogu badbaado xaaladan adag ee hadda ay wajahayaan. qaar ka mid ah badmaaxiinta, gaar ahaan kuwa u dhashay Shiinaha, waxay ku diiwaan geliyeen dhibaatadooda muuqaalo muujinaya iyagoo ururinaya qaboojiyaal si ay markaasi ugu qubaystaan oo ay ku dhaqaan dharka, halka kuwo kalena ay u jeesteen kalluunka kala duwan ee badda ku jira si ay cunto maalmeedkooda uga dhigtaan. inkastoo xaaladan baan ay ka jirto, haddana dhinaca kale waxaa sii kordhay mushaarka kuwa ka shaqeeya qaybta badda. wargeysku wuxuu xusay kor weyn oo ku yimid mushaarka shaqaalaha badaha ka shaqeeya, iyadoo kabtanka markabku uu kasbo karo in ka badan $26,000 oo dollar bishii hal safar uu ku maro marinka Hormuz. waxaana tani ka dhigan tahay in marinka Hormuz dhibaatadiisu xitaa ay faa'iido u noqotay badmaaxyaasha maraakiibta wada ee laga yaabo inay maraan hilinkan. dhibaatadani waxay iftiiminaysaa saameynta sii kordhaysa ee xiisadda ka jirta mid ka mid ah marinada maraakiibta ugu muhiimsan dunida, xilli bulshada caalamku ay sugayso horumar kasta oo soo celi kara isu socodka ganacsiga adduunka. qiyaastii 45 sano ka hor, majalad Carbeed ayaa ka digtay in haddii marin ciriiri ah sida Hormuz uu xirmo, adduunkoo dhan uu noqon karo mid la ceejiyey, dagaal caalami ahna uu qarxi karo. waqtigaasi digniintaasi waxay u muuqatay mid aragtiyeed, laakiin maanta waxay noqonaysaa mid xaqiiqo u ah. kumanaan badmaaxyaal ah, saameynteeduna ay gaartay malaayiin qof oo dunida dacaladeeda ku nool, si ka duwan dagaaladii dhaqameed kuwaasoo saameynteedu ay inta badan ku koobneed juqraafi ahaan. waxaa ka dhacaya marinka Hormuz waxay dhaafeen xuduudaha gobolka, inkastoo aysan jirin gantaalo ku dhacaya magaalooyinka fogfog, haddana saameynta ayaa laga dareemayaa dhaqaalaha, iyadoona qiimaha shidaalka iyo tamarta uu kor u kacayo iyo kororka tooska ah ee qiimaha nolosha caadiga ku imaanaya. marka qiimaha tamarta oo kor u kaco, biilasha guryaha ayaa kordha, kharashaadka gaadiidka iyo safarka ayaa sidoo kale kor u kaca. cawaaqib xumada waxay gaartaa qiimaha cuntada,
sabab la xiriira kororka qiimaha bacriminta iyo wax soo saarka, taas oo saameysa miiska aadka uga fog meel kasta oo colaadeed. saameynta xiisadda ayaa bilaabatay inay kasoo muuqato dhowr wadan oo adduunka ah oo ka fog dagaalka, iyadoona dowladuhu ay adeegsanayaan tallaabooyin gunti-u-giijis ah iyo ilaalinta tamarta. Urdun iyo Lebnaan ayaa xayiraad lagu soo rogay isticmaalka korontada, halka dalalka kale sida Tunis, Morocco iyo Ciraaq ay la kulmeen cadaadis sii kordhaya oo saaran wax soo saarkooda tamarta. tallaabooyinkan ayaa sidoo kale loo qaaday wadamada Aasiya sida Thailand, Philippines, Pakistan iyo Sri Lanka, kuwaasoo qaaday tallaabo lagu dhimayo saacadaha shaqada ama lagu dhawaaqayo xaalad degdeg ah ee tamarta. saameynta ayaa sidoo kale gaartay wadamada galbeedka, iyadoona wadamada Yurub ay dhiirigelinayaan yareynta isticmaalka tamarta iyo Mareykanka oo isticmaalaya kaydka batroolka istiraatiijiga ah, halka barnaamijyo kuwa lamid ah laga bilaabay Canada iyo Australia. inkastoo dalalkani aana si toos ah loo weerarin, haddana waxay bixiyaan qiimaha dhibaatada hadda jirta, iyadoona loo marayo qarashaadka dhaqaale ee kordhay, taasoo ka turjumaysa sida juquraafigu u noqon karo qalab cadaadis ah oo saameeya nolosha dadka iyadoo aan hal xabad la ridin. taa beddelkeeda waxaa soo baxaya iska horimaad muuqda. tusaale ahaan, muwaadinka Iiraan weli wuxuu ka mid yahay kuwa ugu saameynta badan dagaalkan, sabab la xiriira dhaqaalaha dalkaasi oo la ildaran cunaqabateen, qiimo dhac lacageed iyo qarashaadka nolosha oo aada u kordhay. inkastoo bulshada caalamku ay sugayso horumar dhanka xiisadda ah oo la sameeyo, haddana xasarada ayaa weli ka jirta mid ka mid ah wadooyinka maraakiibta ugu muhiimsan adduunka, iyadoo natiijadu ay weli isku mid tahay. carqaladeynta marinbiyoodka Hormuz iyo qiimaha qof kasta uu bixinayo ayaa ah saameynta ugu badan ee dunidu hadda ay wajahayso.